السلام عليكم maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa TikTok muuqaalo lagu duubay maadaama aynu ku soo qaadan jirnay muuqaaladii cabsida lahaa ee xalaqaadka ahaa xagga kale ee YouTube iyo meelaha kale ee la soo dhigo aynu ku soo qaadan jirnay maanta waxaanu ka soo qaadan doonaa TikTok muuqaalo cabsi leh oo lagu duubay markii dib loo arkay ama dadkii dib u arkayna ay aad u fajiceen ayaynu ku soo qaadan doonaa muuqaalada TikTok marka ku soo dhawaada barnaamijka ayaanu idin leenahay channelkana subscribe saarta إن شاء الله تعالى أبكى تيك توك أينو كا هل دونا مقال كحيجا يصيدو كسو عن بحي وح عن كديجي أبكى تيك توك أو كجهر مري أبكى كلا نوع عيسى. Look at this place. Hey man, what's up? This one? It's like Yeah. nin dhalinyaro ah iyo saaxiibkii oo leh page TikTok ah oo ay ku xidhan yihiin in ka badan 1.1 milyan 1 milyan iyo 100,000 oo qof ayaa waxa ay soo dhigeen muuqaalkaas oo muran badan dhaliyay waqti yarna ay ku daawadeen 12 milyan in ka badan muuqaalkaas oo ka hadlayay isaga iyo saaxiibkii oo tagay meel qabri ah waxayna soo dhigeen isla muuqaalka YouTube-ka 2020 aynu ku jirno bishii labaad 12keedii waxaana ay ku sheegayeen in ay tageen qabri meelaha qubuurta ah oo lagu sheegi jiray in ay degan yihiin jin aan imikana wax lagu aasin oo laga guuray laakiin waxay arkeen qabri dhinac ka furan laakiin markii ay ku dhawaadeen waxa ku dhacay wax aad iyo aad u xabsi badan. Look at this place. Hey man, What's this up? one? It's like Yeah. What the? Dude. Do you see that? Almost. You see that? Almost. sidaad u wada jeedaanba waxaa si naxadin leh markiiba uga soo booday godkii yaraa gacan taas oo ka dhigtay inay dib u istaagaan raggii aadna u naxaan waxaana markiiba dhacday kaameradii oo intaas ay ku gooday oo inta kadib wixii ku dhacay labada dhalinyaro ah lama oga dadka qaar oo fasirayay ama aragtida ku dhiibanay waxay yiraahdeen waa nin xagga u galay oo doonayay in uu ka nixiyo oo xagga hoose intuu furay qabriga galay dadka qaarna waxa ay yiraahdeen waa video la sameeyay oo been ah laakiin dadka ugu badan waxa ay yiraahdeen waxan waa jin xaqiiqi ah oo halkaas uga soo muuqday raggan waana sida ay yiraahdeen dadka soo duubay muuqaalkani bal fikirkiina maxaa uu noqonayaa sida la leeyahay ma jin xaqiiqi ah ba mise waa waxyaabo kale. You see that? Almost. Bill brings it inches, no one wants a waist over 9 inches over. markii ugu horeysay ee muuqaalkan TikTok la soo dhigaa waxa ay ahayd September 2019 waxa uuna si aad ah muuqaalkan u caan baxay waxaana daawaday waqti yar malaayiin qof waxaana muuqaalkan soo duubtay gabadh gurigeeda iskaga ciyaaraysay oo ku dhaxaysay si caadi ah laakiin markii dambe ay dadkii fariimo badan ku soo waaleen uguna sheegayaan in dhinaceeda wax la yaab leh ka soo muuqday laakiin gabadhii markii ay dib u daawatay waxa ku dhacay naxadin iyo cabsi aad u badan waynu isla arki doonaa. Bill brings it inches, no one wants a waist over 9 inches over. The makeup contains lead poison. At least your Complexion will bring all the boys in. sidaad markhaatiga wada tihiin ama wada arkaysaan ba waxa ka soo muuqday dhinaceeda dambe
weji kaas oo weji bashar u eg laakiin qaabkiisa iyo shakligiisu uu aad iyo aad u layaab badan yahay una cabsi badan yahay. waxa ayna tidhi gabadhii muuqaalkan soo dubtay ma aha mid been laga sheegay ama la sameeyey, waa mid xaqiiqi ah. waxayna tidhi waxa aan ka maqli jiray guriga codad aanan aqoon, laakiin igu farbatay markii dambe waana ay ka guurtay gurigii. markii dambe dadka waxay ka qancinaysay dadkan ka shakiya muuqaaladeedan si ay u hesho caanimo, waayo dadka qaar ayaa lahaa gabadhan keliyata waxa ay doonaysaa waxa ay tahay in ay noqoto qof caan ah. Bill brings it inches, no one wants a waist over 9 inches, nobody. aragtidaadu waxa ay noqonaysaa sida ay gabadha muuqaalkan leh leedahay ma jin xaqiiqi ahba mise waa muuqaal la sameeyey? ka waran bal arrintan oo kale haddii ay kugu dhici lahayd. I'm starting to feel paranoid, like the only place I feel safe is at my house, and I don't really think that that's healthy, so I decided to just get out. wiil dhalinyaro ah oo akoon ku dhex leh TikTokta ama profile ayaa maalinle waxa uu soo geliyaa muuqaaladiisa oo dad ayaa ku xidhan. waxa kale oo uu leeyahay YouTube page oo muuqaalo yar soo geliyo, waxaana uu muuqaalkan 2019 soo geliyay bartiisa TikTok iyo waliba YouTube. laakiin muuqaalkan markii dambe ay dadku daawadeen waxa ku dhacday inay dadku aad u soo wacaan, commentiyo badan laga bixiyo, loo soo diro messages badan loogu sheegayo in wax ka dambeeyaan waxaas oo aad iyo aad u cabsi badan. waynuna isla arki doonaa. Hey guys, so I decided to just get out of the house today. I think it's probably good for me to keep my mind off of things and just maybe not think about it so much. Just get out of the house today. I think it's probably good for me to keep my mind off of things. sida aad wada arkaysaanba wiilkan dabadiisa waxa ka soo muuqatay gabadh timo dhaadheer oo madow leh oo wejiga oo dhan timuhu ka qariyeen iyo weliba gashan dhar aad iyo aad u cad. waxaana uu yidhi wiilkani anigu kuma aanan baraarugin in ay cidi meesha ila joogto, waxaan moodayay inaan cidiba meesha aan ila joogin. dadka wax ka sheegaya ama commentiga ka soo bixinayay ama fikirkooda ka dhiibanaya waa ay ku kala duwanaayeen, laakiin kuwa ugu badan ayaa waxay yidhaahdeen waxani waa jin isu soo ekeysiiyey sidan oo kale. Just get out of the house today. I think it's probably good for me to keep my mind off of things. fikirkaagu maxaa uu noqonayaa? sida ay leeyihiin ma jimba mise waa gabadh iska caadi ah oo meesha maraysay oo ninkana soo daba socoto oo eegaysay oo iska caadi ah? waxaanu ka gudbi doonaa muuqaalka xiga ayaynu u gudbi doonaa. Ghosts are funny until they start coming to your house. Show you guys that I have a freaking poltergeist. nin ku nool dalka America ayaa waxa uu ku nool yahay keligii guri keliyata, waxa uuna habeenkii marka ay waqti dambe gaadho maqlaa codad la yaab leh oo fajac leh. kadib codadkii iyo wixii dhacay ayaa waxa uu sheegaa saaxiibadii iyo qaraabadiisa familkiisa, laakiin qof kasta oo uu sheego oo uu yiraahdo nin waxaan maqlaa waxa uu ka dhigtaa wax dheeldheel ah iyo waxaan jirin. waxayna yiraahdaan war adunba wax soo ka sawiraan ee waxaas wax jira ma ahin. kadib waxa uu bilaabay page-kiisa TikTok inuu soo dhigo waxyaabaha oo cadeeyo in aan warkiisu been ahayn. kadib wixii uu la kulmay waxa ay noqotay wax aad iyo aad u la yaab badan. page-kiisa TikTok-na ay dadka ku xiran ay aad iyo aad u la yaabaan. waxaynuna ku arki doonaa muuqaalkeenan waxyaabaha uu la kulmay ninkani. Ghosts are funny until they start coming to your house. Show you guys that I have a freaking poltergeist. sida aad wada arkaysaanba
weelkii guriga u yaalay iyo qalabkii guriga u yaalay ayaa kaligood iska dhaqdhaqaaqaya iyada oo aanay jirin cid dhaqdhaqaajinaysa ama jiidaysa oo kaligood iska dhaqdhaqaaqaya waxa uuna ninkii markiiba go'aansaday in uu gurigan iskaga guuro oo waxa uu yidhi waxani waa wax aad iyo aad u cabsi badan markaan habeenkii xilli dambe aan soo kaco oo aan maqlo ugu yaraan waxa uu yidhi waxaan haddii aan gurigan kusii sugnaado ugu dambeyn aniga ayaa inta ay soo galaan dhibaatayn doonaan maxaa ay noqonayaan fikirkeenu waxani majinba mise waa waxyaabo kale